galab wanaagsan oo wacan. Halkani waa barta shidan barnaamijkeenii ee ogaal. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ka shiraya xaaladda dalka Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinka dambe ee maanta ka shiraya xaaladda Soomaaliya, waxayna warbixin ka dhageysan doonaan wakiilka xogayaha guud u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Shirkan oo ah mid albaabadu u xiran yihiin ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka, howlgalka AMISOM iyo arrimaha bani'aadanimo ee ka jira Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa horay walaac uga muujisay dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada, iyagoo ku booriyey madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyaduba in ay dhammaystiraan geedi socodka doorashooyinka dalka. War-saxaafadeed ay soo saartay saaxiibada beesha caalamka maanta ayaa lagu yiriyey saaxiibada caalamigu waxay mar kale carabka ku adkeynayaan walaacooda xooggan dib u dhaca doorashooyinkii lagu ballansanaa inay ka dhacaan dalka. Dib u dhaca joogtada ahi wuxuu halis gelin karaa waqtigii iyo dhaqaalihii looga jawaabi lahaa xaaladda bini'aadanimo, abaaraha, mashaariicda dowlad dhisidda, xaqiijinta amniga iyo dhammaan arrimaha muhiimadda koowaad u lahaa dalkan. Waxaan si adag ugu boorinaynaa hogaamiyaasha Soomaalida, guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, sida waafaqsan heshiisyadii 17 Sebtembar iyo 27 May, in ay hubiyaan in qoondada haweenka ee 30% in aan lagu xadgudbin oo loo fuliyo sida heshiisyadaas ku qornaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkooda maanta ka soo baxay ee beesha caalamka.